ورور بايدي هيا صوبتا شركة جعشيني تركينا يالي حليمة ورسمي سودو وبايو يا دمانتين جمال يا والله الله إسلام يا دمانتين وأنا كقاضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وان سلام يا أمد الصومالية دي ميل كستو أجوكتان وبهدي من نمقرن ومر والبقو تاغن دالكا دادكا عيدا يا علنكا برنامج كيغا إن شاء الله مانتا وحيابا يرر أيان كو إيغي دونا مركستانا وحان جعلنا هاي إنان هادلنو سي دالكين هاقاقو مهمة دايدو وانتا مركستا وحان جعلنا هاي إنان هادلنو سي دالكو هاقاقو سي أمدو ummadda Soomaaliyeed dib ugu soo laabato marka insha Allah walaalayaal qaybo badan ayaan ku taaban doonaa waliba 3 qaybood ba ha ahaato waxaan number 1 horta la yaabay oo aad iiga yaabsaday Soomaaliyeed oo iga yaabsaday oo aniga madaxa intaan ila ekaysiiyay oo aad uga fakiray waxaan la yaabay dadka Soomaaliyeed oo maxay tahay qabyaaladan habeen iyo maalin socota oo only group of mafia wataan oo ay dadka ku shaqaystaan oo ayagu dalka say rabaan 30 sano ay ka yeelayeen ummadii kalena okay ay ku tahay waa su'aash da'weyne dalka yaa iskale war waa su'aal da'weyne Soomaaliyay dalkan horta koow yaa iskale walaalayaal su'aasha bal isweydiiya war dalkan hadda ku hore la yir long time ago waxa waayaan u maleynayaa timekii oo gumaystaha nin Chinese la yaabal dhahay Soomaali qisa yaro oday iiga sheekeeyo waay wuxuu yiri nin Chinese oo jidka dhisayay oo qolada jidka Soomaaliya dhisaysay at that time ayaa waxa la yiri markii fasaxoodii dhamaan rabo oo ay bixitaankooda soo dhawaaday buu waxa la yiri dhagax weyn intuu qaado dhex dhigay laamiga meeshii ay dhisayeen lacag bushqad ku jirtana waa hoos galiyay markuu hoos galiyay uu ka tagay fasaxoodii bay aadeen waxay maqnaayeen couple months 6 bilood leer way soo noqdeen dhagaxii oo meeshii si yaala jidkii oo dhinacyada laga jajabiyay meel kasta laga maray dhinacii oo geedaha ahaa gawaarida dul martay laakiin dhagaxii meeshiisa yaalo ayay yimaadeen dhagaxii bay kor u qaadeen waa firsheen misal lacagtii waa ku jirtaa ninkii Chinese-ka intuu yaabo wuxuu yiri Allah dalkan dadkii lahaa waa maqan yihiin hadda Soomaaliyay dalka Soomaaliya dadkii lahaa walaalayaal xagee bay aadeen waa aaday xagee ku nool yihiin anigu ilaa hadda waan yaabanahay war 30 sano Soomaaliyay ninba Soomaali oo dhan ku awrkacsanayay group yar oo mafia ah oo ayaga dhan 100 qof dhamayn oo 50 qof amal ah ba Soomaaliya oo dhan use gareynayay hostage u qabsaday ummadii Soomaaliyeed kala fogeeyay qabyaalad iyo qurun dadkii badda ugu guray iyo barigaba ugu guray habeen iyo maalin taraay gareynayay in ummadda Soomaaliyeed jeebkooda ay ku jirto
maxaa ummadda soomaaliyeed habeen ka dhigay anugu waa yaabanahay maxaan ummadda soomaaliyeed habeen ka dhigay walaalayaal maxay tahay qabyaaladan habeen iyo maalin markii la dhaho xoogaa dalkii xoogaaba u soo kacay kor haddana habeen iyo maalin loo fadhiisanayo oo mar labaad ummaddii soomaaliyeed hadda ka kacoy ay leeyihiin I don't know what's going on Soomaaliyeed ma dad damiir la'aan waahan nahay ma caqligii baa inaga guuray ma damiirkii baa inaga guuray ma ummadnimadii baa inaga guurtay laakiin something is not right realityga waa taa wax baa ka qaldan Soomaali wax weyn baa ka qaldan labadan bari waxaan maqlaynaa habeen iyo maalin Soomaali anagoo ogeyn oo dhibaatadeeda dhan ogeyn ayaa in alla intii dalkooda xumaantiisa weligood ku dhergi jiray ee ku naaxi jiray ee ku maxay tahay shaqaysan jiray ee habeen iyo maalin Soomaali gadaal u dhigay ee dhalinyaradii baabi'iyay ee hooyooyinkii badda ku guray ee nimankii awoowayaashii cilla dhigay ee taariikhdii dalkeena baabi'iyay ayaa habeen iyo maalin weli dawladnimo iyo dal-aan dal inuu soo kaco aan noo ogolayn haddana okay baan ku nahay haddana ashwali not okay waxaanba u taagannahayba inaan difaacno because waa in adeerkay waa inay hebel waa landheere waxaan u taagannahay kii dulmiga waday oo dalkiisa duminayay oo dulmigiisa 100% dalka Soomaaliya oo dulmi ku waday inaan u istaagno garab siino maxay ku dhacday Soomaaliyeed maxay ku dhacday dadkii Soomaaliyeed habeen iyo maalin inay wanaag iyo maxay tahay qabyaalad xumaan inay u taagan yihiin oo wanaagii dhan diidaan maxay u diidan yihiin ummadda Soomaaliyeed wanaaga waa la yaab waxaan la yaabay walaalayaal maantayto maxamed cabdullaahi farmaajo iyo khayri ayaa hoggaanka dalka haysta yesterday waxaa joogay xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh ayaa joogay markii ka soo horeysay cabdullaahi yuusuf baa joogay iyo markii ka soo horeysay madaxweyne kale ayaa joogay markasta madaxweynaha group of mafia madaxweynahaas haddayna rabinin waxay ku qaraabtaan oo u istaagaan qabyaalada dhinaceeda maanta hadda waxaa socoto sheeko la yiraahdo maxay tahay kablalax kacoy kablalax baa socota yesterday waxaa socotay waa waray daarooda oo hawiyaan aan qabsanaayo tii ka sii horeysay waxaa socotay waa waray daarood baa na qabsanaayo war maxaa habeen walba afar maafiyo oo dalkoodii rabtay inay dajiso idinka Soomaaliya idinku adeegataa aniga musu'aasheedu waa taa maxaa damiirkii iyo Soomaalinimadii idinka qaaday Soomaali hadaatiin aaway Soomaalinimadii aawa dal jaceelkii aawa islaamnimadii aaway maxay tahay waxeerintii aaway mustaqbalkii ummadda aan weli dhalanin aawa qoomiyadii baaba'day oo Soomaaliyeed ee weli mugdiga ku jirta soo celinteedii waxaan la yaabay waxaa la ii sheegay magaaladan aniga hadda aan ku noolahay Minnesota Minneapolis madax badan oo Soomaalida dadka Soomaali magacooda wax ku helay oo ku nool because xaq Ilaahay buu yaqaanaa inta aan noolahayna xaqaan u hadlayaa inta aan noolahay xaqa ayaan u hadlayaa reality markaan idin sheego Ilaahay baan ka baqaa aadama kama baqo runta horta ogaada alle hal maalin baa la dhimanayaa waxaan la yaabay shalay madaxdii Soomaali magaceeda wax ku heshay ee Minnesota u shaqaynaysay ee Soomaali oo isku duuban 150,000 oo qof oo Soomaali oo Minnesota ku nool ay doorteen ee u codeeyeen ee xaafadahooda ka soo saareen ee garabka ka dhigteen inay madaxdii dalkii inay wax ka burburinayaan I'm really sorry about that inay dalkii wax ka burburinayaan magacooda Soomaali bay ku noqdeen meesha ay joogaan Soomaali bay u joogaan waxa soo saaray ummadda Soomaaliyeed waaye qabiil maxay tahay qabiil ka badan Soomaali saaran ummadda Soomaaliyeed wada socotaa soo saartay 150,000 ama 200,000 oo ku nool Minnesota kulligood hal qabiil ma aha hal reerna ma aha waa ummadii Soomaaliyeed oo qaxootiga iyo rafaad iyo silac ku timid dalka ay joogaan waxay rabaan inay hagaajiyaan waxay leeyihiin dalka waxbaan ka bedelayaa xaafadayda waan hagaajinayaa xaafad hiblaayo waxbaan u qabanayaa dadka Soomaaliyeed inta jooga waa hagaajinaya dadka Soomaaliyeed inta jooga sidee baad u hagaajin kartaa markii aad dalkoodii burburinaysid oo habeen iyo maalin xumaan ugu taagan tahay markii madaxweynihii dalkii Soomaaliya joogay habeen iyo maalin xumaantiisa u diyaar garoobaysid oo habeen iyo maalin adigoo shalay lagu doortay aad try gareynaysid inaad hal qabiil noqotid sidee u hagaajinaysaa wax badan ayaa waxaan maqli jiray nolosheeda oo Puntland waxay u taagan tahay dalka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed nabadoon weeyaan what's going on aaw shicibkii Puntland
maxay tahay mucaaradkan meel walba qabsaday ee habeeniya maal u taagan ee maxamed cabdullaahi farmaajo ma rabno maxay tahay nimankan maxay tahay puntland qabsaday ee ka dhigtay shaqada inay madaxweynihii dalka eegtaan maxay tahay war an reer puntland oo dhan oo horta waxaad ogaataan horta ummadda og waxa maanta socdo reer puntland oo dhan arrintan ma raacsan especially shicibka puntland ma ogola waxay rabaan soomaalinimo waxay raadinayaan midnimo waxay raadinayaan dalkii iyo dadkii oo soo noqda puntland annagaa ka midna annagaa awooyaashan u dhasheen annagaa u dhalanay haddana ma ogolin soomaali kala go-eeda iyo kala baabee'eeda iyo gadaal dhuridkeeda iyo maxay hayta soomaalidii shala hadlaysnayd in dib loo sii dhigo nin ummaddii soomaaliyeed dejiyey dalkii dejiyey maxay haytay kenyaati wata ayaa la leeyahay oo asaga in adeerkay ah laakiin farmaajo in adeerkay ma aha maxay ta xasan khayre in adeerkay ma aha maamulka nimankan waayo dalkii aan gadanaynay iyo hawshii aan qabsanaynay iyo arrimihii aanu wadanay oo goorida u wadanay ayaanun haysanin maanta markaa sidaa darteed maamulka ma rabna hadda jooga because shalayta xasan sheekh markuu joogay oo aad isku walwaashaan laba bacoodoo lacagu idiin soo qaadi jira wuxuu idinkugu imaan jira puntland bolshit habeen iyo maalimo waxaan ku jiraynaa 30 sano dal gadaal u laabta oo dadkiisii oo dhan liciif yihiin oo dadkiisii maskaxda laga haysto yasarnay markaad sidaas oo kale isu walwaashaan xasan sheekh asagoo gawaari jiidaya dhulkan idin sorry walaalayaal anaa kugu soo celinaya please ha soo wicin marka yasarnay markii maxay tahay xoogaa la isku xanaaqo xasan sheekh dhulku wax ka gadan jiray waddanka dhan wuxuu geliyey maxay haytay in la baabi'iyo oo la gagato oo la qaybsado oo waxaa socotay import export oo waxaa socotay sell oo waxaa socotay ugeeyo si cari soo cara waxaa socotay qaraabo dal kale ugee ayaa socotay dowladda maanta joogta qaraabasho waa diideen xaq darro waa diideen dalkii ay rabaan inay isku aadiyaan inay ummaddii burburta isku soo kakabaan bay rabaan ummaddii kala jarjarmatay inay isku soo jarjaraan isku soo toltolaan ayay rabaan marka in la dhaho waxaan la hadlayaa gooni ula hadlayaa reer minnesota inaad qabyaalad u wada istaagtaan oo aad tiraadaan madaxweynaha walaalayaal raalli noqda qof baa igu soo celcelinaya mana la hadli karo marka in maantayto la dhaho oo madaxweynaha ma imaan 200 oo kun oo qof baa joogta minnesota laakiin ma imaan karo because dad baa ku mudaharaadaya aawa taageerayaashii jubbaland u dhashay ee dalka soomaaliya aawa taageerayaashii puntland u dhashay ee dalka soomaaliya aawa ummaddii soomaaliyeed ee puntland maxay ta soomaaliya oo dhan ka timid ee minnesota ku noolayd maxay tahay mucaaradkan qabyaalada ah oo xaafadda keliya ah oo isbahaysanaya oo leh dalkii baan burburinaynaa markii aniga maanta dalka la burburiyo maxaan faa'iiday oo walaalayaal aan helay oo dalkaygii 30 sano burbursanaa markii la dhaho waa la burburinayaa maanta oo weliba dad dowlad iyo dad iyo maxay tahay dibadaha dalkan u shaqaynaya ay weliba shaqo ku leeyihiin oo ordayaan maxaan faa'iidna bal ii sheeg talimi waxaan faa'iidnay maanta dowladdan hadday wax hagaajiso waxbaan faa'iidaynaa tan ku xigtaa hagaagaysa oo tan ku sii xigtaa hagaagaysa oo dowladdaanu maanta aydiyada ummaddii adduunka ay tuseen iyo fikradda fiican oo adduunku ku jeclaaday maxay tahay hadday sii socoto madaxweynaha ku xiga meel easy ah ayaa loo dhigayaa banooniga uu ka qaadanayaa wuxuu helayaa dal dhisan ayuu helayaa dal uu madaxweyne u noqdo ayuu helayaa dalkii kasii fiican ayuu qabanayaa asaguna shalay intii lasoo qabtay ka badan ayuu qabanayaa laakiin habeen iyo maalin xaafad group of mafia dal dhan oo group of mafia 20 qof aan dhammayn ama 100 ba aan dhammayn asaga dhan ay la wareegeen oo hostage ugu jiraan yaa yeelayo oo dadkii soomaaliyeedna damiirkoodii uu noqday only qabaayaalad iyo inay reer hebel baa isku tihiin dani baa isku tihiin maxay tahay madoob baa isku tihiin xasan sheekh baa isku tihiin hebelo baa isku tihiin noloshiina dhan ay noqotay intaa haddaad xaqa u hadashana waxaa lagu leeyahay lacag baa lagu siiyaa inaan xilligaa shaqo ka imaado xoogayga xalaal soo shaqaysta ma oga haddaad tidhaahdo war xaqaha loo hadlo ilaahay ka baqa oo sidan inama anfacayso 30 sano waa adduun dhan intuu u dhismo Trump baa nala yaabay oo yiri saddex qabiil baa 40 years isdilaysa oo dalkaas dhan baabiisay war ummad yahay Soomaaliyeed anigu I don't know meela u socotaan laakiin what's going on hadda iyo mar walba bas ka socday Soomaaliya wax aad u xun weeyaan dadka habeen iyo maalin dadka isugu soo jafay qabyaalada ee maanta tan noqday oo waxaanu nahay shalayta adeer madoobe daraad wuxuu dhahay xasan sheekh haweenimo noo bursanaya daarado kaca jubbaland inaga isle maantana muxuu leeyahay kabla la xoo kaca ninka mareexaan naga qabta waligay qabyaalad ma soo hadal qaadin laakiin am piece of waxa meesha ka socda iyo qurunka iyo qabyaalada iyo qashinka meesha ka socda hala joojiyo
ورشلا حسن شيخ مركو جوغي محيته مرحان ولا اسمه صور راعين او مدهين هل دميو ورمركي محيته او هيست عبد الله يوسف مدهين مرحان ولا هل دميو ورمركي محيته مدحويناش war Soomaaliyeey sida u socotaan waliba hadda waxa ka socda ee dani iyo madooba wadaan ha joojiyaan dani iyo madoobe ha ka fariistaan Soomaali waa sakaraad waa sakaraad isbitaal ku jiro oo 100 faleenba ku socoto 100 faleenba ka socota hal faleenba in laga saaro ma awoodi karaan Soomaali maanta ito waa qof 30 sano sakaraad aha oo sariir saarna qof 30 sano oo sariir saarna oo sakaraad aha oo week ah oo maxay tahay maskax iyo miir midna u shaqaynaynin hadda iyo kow iyo dagaal iyo rafaad iyo kala xil iyo cuqdad iyo kala kaxayn iyo ummad law kala wado ninna ma anfacayso war waxayna anfacayn reer Puntland oo waxayna anfacayn reer Jubbaland oo waxayna anfacayn reer Somaliland oo waxayna anfacayn Soomaali runta marka la idin sheego qof kasta oo Soomaaliyeed oo Minnesota ku nool ama adduunka ku noolna qof kasta waa in uu istaaga oo respect siiya madaxweynihiisa meel kasta uu ku nool yahay madaxweyne kasta madaxweynaha maanta iyo prime ministerka maanta wax different ah laga arkay waa in lagu abrisheer gareeya oo alxamdulillah la dhaha oo hawsha la qabtaa ma aha in reer walba intay gooni isu saartaan ay dhahaan oo ma arki karna ninkan ma arki karno ninkan waxa weeyaan siyaad baro soo noqday siyaad bar maxaaba nooga dambeeyaba maxaaba ka dambeeya asaanba school free as oo dhigteen maxaaba ka dambeeyo arkay balan bal yaqaxiya dadkaygiyo maalmo Soomaaliyeed oo silcaaya leen maqlaa ilaa 30 sano oo dagaalkii socday intii badneed intaan jooga habeenii maalin qaxya rafaad iyo dadkeeniyo la qarxinayo iyo hoog iyo baabaan maqalnaa iyo haraad iyo niman kaligood dhergay daniyo Soomaaliya oo reed maxay tahay boosaaso dhan haaf gatay oo dhulkii oo dhan xirtay oo asaga dantiisa iyo jeebkiisa kaliya ka hadlaayo iyo adeer maxay tahay geeda naare oo Soomaali dhigoodi iyo dhacaankoodi oo dhan qaatay ayaa qof walba intuu meel soo istaagay difaacaya qof walba meelta oo waliba afcad ay ku leeyihiin waa iska qabanayna dawladda oo waliba hanjabayaan ayagoo Kenyaata asoo wato maxay tahay geeda naare adeer geeda naare meel dheer ma sii gaaraysid wax badan baan ogahay meel dheer ma sii gaaraysid xaaladaadu waa gabagabo biidnillah afarta koona ciidankaaga soo socda maanta waxa la yiri Kenya ciidan bay soo dejisay Kismaayo laakiin oo hub bay soo dejisay laakiin hubka Kenya biidnillah ayagaan ku garaaci doonaa hubka Kenya keento Jubbaland ka soo dejiso oo ku talagasho dadka Soomaaliyeed in lagu xasuuqo oo adeer uu dadka Soomaaliyeed ku xasuuqayo ayaga baa lagu xasuuqi doonaa take my word waxa lagu xasuuqi doonaa hubka la keenay asaga laakiin afarta koone Soomaali xalaalha kaaga soo socota Jubbaland adiga kaliya malihid umada Soomaaliyeed oo dhan baa lahayd Jubbaland la wada leeyahay noqonaysa Jubbaland qofkii loo doorto maamulana waa noqonaysa Jubbaland umada Soomaaliyeed oo Soomaaliya ku nool oo Jubbaland ku nool oo dhan baa ka wada talinaysa Jubbaland hal magaalaad ka joogtaa Kismaayo adeer Kismaayo oo abaaro ku riday abaaro oo dadkii qorraxda meel ka harsadaan la yihiin oo wada green ahaan jirtay all over green ahaan jirtay walaalkay markuu iga sheekeeyay all over green bay ahaan jirtay haddana hal geed oo geedka oo ariga hataa harsada ma yaalo kulli waa qaadatay kulli waa dhoofisay kuwi geedka harsada ariga hataa harsanaya waa qaadatay ala ay xal waxa socda oo dhuqdhuqda ah oo maxay tahay qabyaalada ah oo dawladda dalka Soomaaliya maanta u dhaqdhaqaaqayso lagu riixayo shicibka Soomaaliyeed oo intiina meesha ku jirtaan gudbiyo walaal anigu xilligan oo kala shaqo ka soo baxa chance ma helayo laakiin waxaan rabaa message-kayga inaan qaadaan hadda dad Soomaaliyeed oo wadani ah oo dhigla tihiin gudbiya oo gaarsiya u geeyo walaalayaal meelaha ay fadhiyaan ugu geeya biidnillah meelaha ay fadhiyaan ugu geeya waxaan socdo oo war kacay war maxay ta kabalada xabal dhaha war hebelow baa la dhaha shala maxay ahayd shala wuxuu dhahaayay adeer madoobe kacay daaroodo hawiya la ina maagaaye hadda maanta maxay tahay kacay kabalada xoo mareexaana maagaaye war habeen iyo maalin Soomaali damiir xumadooda ma waxay u taagnaanayaan in qabiil lagu kacsado oo dalkooda lagu dumiyo oo hore loo socon waayo oo dadkii Soomaaliyeed oo Soomaaliya ku noolaa hal mar ay neefsan waayaan oo habeen iyo maalin ay ku jiraan rafaad iyo adduun iyo qarax iyo gaajo inay ku jiraan taasay noqonaysaa nimankan maamul goboleedka lagu leeyahay walaalayaal maamul goboleedka horta sidooda ahaanba Soomaaliya fakara maamul goboleedku waxay rabaan inay qaraabtaan oo adduunyada aadaan waxay rabaan inay iska dhigaan inay dal yihiin waxay rabaan inay u kala dhuntaan oo meel walba boorsal caga looga soo dhiibto ma rabaan dal halgaaga wayna idin cadahay hadda wixii wax garada oo aqli lahow way idin cadahay hadda sababta in kugu cadahan idin sheegaya haddii Soomaaliya madaxweynaha iyo prime ministerka maanta u talinaya ay u wada taliyaan already waxay joojiyeen waxyaabo badan
waxay joojiyeen shisheeyihii dekedaha kusoo kala yaacayay waxay joojiyeen ummadii maxay tahay dhulkii la kala gagadanayay waxay joojiyeen maxay tahay nimankii habeen maalin sii dhoofayay oo qaraab tagi jiray qaraab tagowga badnaa nimankii qaraabka habeen maalin ugu sii socday imaaraats ayay joojiyeen imaaraats meel cad bay saareen kenya meel cad bay saareen waxa ay dejiyeen schedule la dhaho soomaalinimo nimankan dowlad goboleedku waxay aamineen ayaga madaxweynayaal in la dhaho waxayna rabaan inay keligood gobolkaas atoora ka ahaadaan dadka inta la noolna waa la hayste kulli inta dadka soomaaliyeed ee gobolada ku nool waa la hayste waxay la hayste u yihiin 4 nin oo tuuga ah 4 nin oo tuuga ayay u yihiin 4 nin oo tuuga ah ayaa gobolka dhan la hayste u yahay 4 nin oo tuuga ah ayuu gobolka dhan la hayste u yahay marka ma rabaan dawlad dal soo celinaysa sharaf leh ummadii isku aadinaysa annaga waxaan u oomanahay oo u rafaasanahay oo u ooynaynaa inaan aragno Soomaali oo iswadata inaan dalkeeni oo soo noqday aragno in la dego in rafaadka raaxa ka dambayso in ummadu nasato ayagu laakiin they don't want it ayagu because hadday noqoto Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in la wada hoos yimaado oo prime ministerka la wada hoos yimaado ayagu waxay aaminsan yihiin benefitkooda inayna ahayn may fahanteen Soomaali marka ayagu benefitkoodii maadaama ayna ahayn sabay ayagu adiga marka maxay ku kicinayaan waxay ku kicinayaan isku reer manihinay ka kacooy waa qabyaalad hebelay hadiiba seef buu noola soo baxayay waxaas oo dhan waxa inoo keenay Soomaaliyeey horta waa 4.5ka iyo waxa noo keenay waxa weeyaan federaalkan lagu sheegayo waa fidno socoto waxaan laakiin dal 30 sano god galayaan hees sidee uga bixi karnaa waay ugama bixi karno because nimankan qabiil bay meesha ku saarayiin qabiilkooda meesha ku waardiyayo ilaa iyo waxaan ku leeyahay waxay maraysaa qurbihii dalkii America oo qaxootiga aan ku ahayn bay waxay maraysaa in la dhaho madaxweynaheena ma soo dhaweyn karno because qabiil hebel meeshaan xaafadan iska leh waxaaba laga dhigayaa Minnesota xataa qabiil inuu leeyahay bay ka dhigan tahayba waxa la leeyahay qabiil baa meeshaan iska leh xaafadan oo anaga qofkaan ribin ma imaanayo dadka mentalitygoodi iyo maskaxdoodi sidaas ayay Soomaaliyeey noqotay baaba iyo hoog anigu waxaan bays dhahaa marmarka qaarkood dalkan dadkii lahaa meesha ma joogaan dadkan meesha lagu soo arushay kulligood DNA ha laga qaado Soomaaliba ma aha because wax Soomaalinimadii ka basishahay oo Soomaalinimadii u ooynay waa yarihiin wanaagi dalkooda wax raba oo ku farxay waa yarihiin waxa la rabaa habeen iyo maalin xumaanta dalka maxay ku dhacday habeen iyo maalin xumaanta dalka in la raadinayo maxay ku dhacday habeen iyo maalin in la rabo dawladdu inayna success noqonin maxay ku dhacday habeen iyo maalin in sharaftii iyo magacii ay samaysteen prime ministerkeena iyo madaxweynaha maanta jooga laga xumaanayo because dadka Soomaali ma ahaan isiraanay hadday Soomaali yihiinna waa kuwo maxay tay aan ahayn dal Soomaali oo wax ka khaldan yihiin waxa la arki jiray dad dalkooda quruxdiisa ku faana war Eritrea waxay ku gaareen in dadka dibadda jooga xataa cashuurta diraan oo ayagu dalkooda waxay u sheegeen niyadooda waxay u sheegeen inay dal yeelanayaan maxaa dadkii Soomaaliyeed habeen iyo maalin qabyaalada loogu kicinayaa warkaca sidee bay ku dhacdaa meel walba maalin walba inay 3 reerood ama 4 reerood oo gubtay oo Soomaaliya oo dhan nabad u diiday hadda ay realize ba Soomaali qabiilada nabad u diiday aan hadda waa ogaaday 30 sano qabiilada socda oo rafaadka ummadda Soomaaliyeed galiyay now I know maxaa keenay habeen maalin xumaan la inay socoto oo dalka nabad loo diido waa qabyaalada loogu gabanaya oo loogu adeeganaya oo looga dhiganaya qabyaalada hubkii adduunka u weynaa maxaa aniga iga galay kabla laxana maxaa iga galay ninka dalka duminaya ee habeen maalin boorsadayada wata ee dekadii gatay ee raba inuu habeen maalin dalkii Soomaaliya xaraasho awoogay dhaxalkiisa inuu dalka u geeyo maxaa aniga iga galay maxaa aniga iga galay kuwa raba only Soomaaliya dantooda kaliya inay ku gaaraan laakiin ummadda Soomaaliyeed aanu danaynaynin maxaa aniga iga galay mid kale maxay tahay madaxweynuhu wax fiican buu qabtay laakiin ma raba inaan arko because waa reer hebelow maxaa aniga kaas iga galay wallahi Soomaaliyey I don't know meela u socotaan laakiin wallahi waxaan idin sheegayaa haddaad annada 20 years ama 10 years sida hadda ku jirtaan iyo hooga iyo baaba iyo balanbalka iyo qabyaalada aan dhamaanaynin ee raggu shaqada ka dhigteen group of mafia shaqada ka dhigteen haddaad ku sii jirtaan taariikhda meel aan marteen waa idin ka weyn doonaa waana idin sheegi doonaa 40 sano 3 qabiil isku dagaalayaan biiro Trump intuu la yaabay biiro 40 wadan dadkooda jaahiliinta ah soo hagaajiso 40 sano ay qabyaalada isku dagaalayaan 3 reer ba 40 sano qabyaalada isku dagaalayso 3 tribes biiro ma fahanti 3 tribeski maanta waxay ka socotaa Minnesota inay dhahaan oo Farmaajo ma imaan karo because waa qabiil kale bal who are you Farmaajo markuu qabiil kale qaxooti baa ku tahay Minnesota
dadka Soomaaliyeed haddaad xataa wadankan dawladda u shaqaysid dadka Soomaaliyeed madaxooda ayaad ku heshay sharaftooda ayaa ku heshay wanaagooda ayaa ku heshay markaad tiraahdo dalkii Soomaaliya anoo jooga Minnesota dumina anoo jooga Ohio dumina anoo jooga Vancouver dumina wallahi inaad meel gaarin akhri adduun midnaba because ana soo arkay Soomaaliya dadka rafaadka ay ku jiraan adigu laakiin nabad baa u diiday because ilmahaaga waxay ku cabaan biyo qabow iyo caano qabow adigu because habeen walba iyo subax walba waxaad cuntaa wax fresh ah shaqadaadana waad haysataa proofna waa kaa koreeyaa meel nabad ku joogtana waa joogtaa laakiin habeen yamaan waxaad jeceshaa inaad ka shaqayso dad islaameed oo masaakiina oo rafaasan oo 30 sano baaba ku jiray inaad gadaal u dhigto oo baabiiso ma fahanti waxa qolyaha oo mataqaana oo ilmageeda naar iyo qolyaha qabyaalada ku jabsan tahay oo sunta oo qabyaalada lagu jabiyay oo kaga dhagan tahay le aniga reerkayga bas aan noolaado ani adiga ka waxba isku banihin waxna iima soo qori kartaan because ani idinka we are not even waxba isku banihin isku mana dhawin nin qabiilkiisa kaliya waardiye ka ah iyo naa qabiilkeeda kaliya waardiye ka ah ee rabta ummadda Soomaaliya because of them inay god galaan waxba isku manihin ani waxaan isku nahay ma jirto walaa geeda naar walaa deni walaa maxay tahay dhuxdhuxda iyo maxay tahay kabla lahayo baqtiga socda wax aan isku nahay malaha waxay yihiin malaha qofkii Soomaalinimo raadinaya maanta qofkii dadkiisa ciifay ee 30 sano baabacsanaa ka fikirayo qofkii islaamnimada iyo diinta islaamka ku dhaqmaayo oo og dhibaatada dadkooda soo maray qofka maanta raxmad u raadinayo ummadan baabacday ka kaliya ayaan wax isku nahay ka kaliya ayaa ehliya ka kaliya ayaanu ehelnahay ama qabiilnahay laakiin qola shaab u soo gashatay bir ah habeen iyo maalin xumaan oo hadaana ridinay maanta meesha Soomaaliya gaartay abid ma gaarin hadaa ritaan maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu degan yahay meesha la yiraahdo uu soo degaya Buffalo soo degaya bartu deganaa soo degaya laakiin waxa dhibaato u taala dadka Soomaaliyeed ee 30 sano dhibaatada ku jiray welina damiirkooda reebalow yahay aqligoodu reebalow yahay because dhalinyarada Soomaaliyeed ee Puntland ku nooleed ilaa hadda waa daawanayaan waxa uu dani ku hadlaayo iyo dhibaatada iyo dagaalka uu kula jiro dawladda federaalka iyo dalka dawladiisii kii maxay tahay geeda naar waa loo jeedaa reer Jubbaland oo dhaydhaha isku haysan waa iska fiirsanayaan waa yaaban yihiin xataa war 8 sano dalka soo haysay naga tag ma dhihi karaan because of qabiil waxa ummadda Soomaaliyeed ee habeen iyo maalin gadaal u dhigay dalka Soomaaliya oo ummadda adduunka ula yaaban tahay cawaanta qaqaawan loogu maleeyaa waa group of mafia waa niman aan boqol dhamayn boqolkaasna mid walba waxa ku hagoogan oo ku gadaaman oo dadka kala rabinin qabiil waxa la dhaho ilaa dhalinyarada Soomaaliyeed intay istaagaan ay movement adag noqdaan ay nimanka dhan intay qabtaan boqolka nin intay qabtaan aynan maxay tahay hal mar container intay ku xareeyaan ayna geenin magafa u geenin oo ayna ku dhimbal xanuunkii tus aan soo tustay dal ma hagaagayo dhalinyarada Soomaaliyeed waa kuwa mid walba difaacaya geeda naar waa kuwa mid walba u taagan yahay ku hagoogan yahay geeda naar waa kuwa askarta u noqday geeda naar waa kuwa difaacaya ninka dhahayo maxay tahay dawladda tii dheerad baan dhigaya hadii ayna waxayn oo magaaladii Boosaasan haafka gatay dadka ninka dhahayo waa kuwaas ilaalinayo qabiilka halka nin lacagta yar uu siiyo maxay ku ilaalinayo waay kuwii la rabay dalka Soomaaliya inay badbaadiyaan 30 sano hadda la soo dhaafayna waa badbaadin waayeen maanta oo dawlad dhalinyaro oo fiican oo dalka rabta u joogtana waxba badbaadin mayaan because dhalinyarada Soomaaliyeed adduunka dhalinyaro ka shaqeysa dhalinyarada Soomaaliyeed waa kuwa la leeyahay maanta dani lacag buu siiyo miidihu wuxuu ku soo daayay 100 dhalinyaro oo wuxuu yiri waraa bilkiina aniga ay weydiiyay miidiyaha fadhiista oo ka saara dhalinyarada dadka maxay tahay dawladda taageera alle waxay u dhinteen noloshii dhaxalkii awoogood iyo naftoodiiba waxay u huraayaan inay magafa isu dhiibaan iyo inay nin xun daba fadhiistaan dalka inay ayagu leeyihiin dadkan ayagu inay sugayaan mustaqbalkoodii ayaga in la rabo wax inay badbaadiyaan dhalinyarada Soomaaliyeed ma aaminsana marka waa su'aal da'weyne dalka yaa iska leh إلهي سبحانه وتعالى وحونا ده حق وضهيلي ونستاجا ولالك هدو قلدين حقبو أبها هدو قلدين حقلتك كراعين هو لا هدي قلدين حقلتك كراعين وحنا توسيه وعسوا مالي لكن إن أركي نقلات أو ولي بأوسي آمسنو أو أنتي غير بخ كوهايان أو أي دولة دي لقى العلنايو أو أي دلكي هرمر وديديهين أو قار كينياتي وطان أو كينياتي وليهي
maanta waxaad ii sheegay kenyaatiga inay soo qoreen niyuusyadooda qofkii arkay baa arkay niyuusyadooda niyuus ka mid ah bay waxay ku soo qoreen baa la yidhi hadduu rabo farmaajo kismaayo annaga nagala soo hadlo madaxweynaha iyaga ha kala soo hadlo because kismaayo anaga gacanteeda ku jirtaa hadduu rababa inuu ka hadlo kismaayo annaga ha nala soo hadlo because kismaayo anaga gacanteeda ku jirtaa marka bal damiir xumada dadka soomaaliyeed fiiri damiir xumada nin dalkiisii haysta oo dherdhacsi raadinayo baa wuxuu leeyahay farmaajo annaga ha naga soo mara kismaayo farmaajo kismaayo ninna ugama kalama hadlayo gobolkiisii waa nin shisheeyaana kalama hadlayo oo ilaahay alxamdulilah ninkaas nacas aad iyo aad iyo aad buu tafuga yahay laakiin waxaan la yaabay damiir xumada dadka soomaaliyeed qaarka daawanaya qaarka fiirsanaya qaarka akhrisanayo kuwa maxay haatee ku nool jubbaland maxay tahay madoobe daba taagan kuwa maxay tahay raba dalku inuu kala gogo'o kuwa calaacalkiisa iyo beentiisa iyo balaayadiisa ummadda ku kala goyna dhegaysanayo eraygaas keliya dareenkooda ma kicin waaye eraygaas keliya may ku dareemi waayeen dalkii soomaaliyeed meel xun inuu joogo marka nin kenyaati oo gurigiisa dhex fadhiyo uu dhahayo kismaayo dantayadaa ku jirta maadaama dantayada ay ku jirto ilaa dantayada aan ka gaarayno we have to inaan annaga ilaalino maxay tahay hadduu rabo farmaajona waan ka wada hadli karnaa qof la dhahaayo dalkaagii gobol ka mid a aniga igala hadal madaxweyne la dhahaayo adduunka oon soomaali ahayn adduunka ma soo maray because waa dadka iyaga damiir xumadooda waa dadka soomaaliyeed damiir xumadooda waa nacaybka iyo qurnimada iyo xaasidnimada ay ku jirto waxaanan u malaynaa marka dambe ilaahay waxaan ka baryaa sayid maxamed cabdilla xasan oo kulli qoorta idinka wada jara oo 1 milyan hal maalin dila ilaahay inuu idin keeno because caqli dhan ma qabtaan 1 milyan in hal nin oo waxaa fiican intuu yimaado 1 milyan of you hal habeen qoorta ka jara haddaba already 10 milyan oo horaa dhimatay 1 milyan hal habeen nin idinka dilo oo kale baad ku fiican waayo wadani ma tihidiin oo soomaalinimadiin waxba kama jiraan oo damiir ma tihidiin oo muslim ma tihidiin muslimnimadiina shaki baa ku jira because dadka muslimka nabaday raadiyaan kitaabkeena waxa ku qoran peace and love ummaddu waxay isugu timaadaan nabad dalkii nabad waa u diideen habeen walba caawadaas qaraxa dhacay habeen kasta qaraxa wadaan habeen walba nabad daraa wadaan habeen walba qabyaalad baa wadaan habeen walba shisheeyo carar baa wadaan habeen walba ummad kala fogeyn baa wadaan I don't know muslimnimadiina shaki weyn baa ku jira because soddon sano isweydiinayay dadkana maxaa ku ilaa maanta ilma aha ilaa hadda waxaan isweydiinayaa maxaa dadkan ka khaldan war maxaa dadkan ka khaldan war maxaa dadkan ka khaldan welina waxaan u jeedaa weli waxbaa ka khaldan weli waa sidoodii dadka islaamka ah oo kitaabkeena raacanayo hal habeen inay isdilaan ma ahayn every single thing ilaahay diintiisu noogu sheegay peace and love diinteena ku dhigan tahay kitaabkeena nabadoo dhan ka timaaday maxaa keenay habeen iyo maalin boob iyo dhac iyo dal la salgaraysanayo iyo dal la kala gadanayo iyo xaafad group walba maxay tahay nin xaafad walba ku xirtay dadkii laba quful maxaa keenay because waxaa keenayo dadka soomaaliyeed meel bay wax ka haystaan amar baa haysto maskaxna ma jirto ilaa ilaahay u keeno nin killar ah anuu kaasaan sugayaa hadda dhalinyarada soomaaliyeed isku aadiya ummadda qoorta ka jara wixii soo haraya baaqiga badbaadi laakiin hadda sida socota xaafad walba nin intuu dadkii ku xirtay maxay ta been iyo balaayo ka dhaadhiciyey haddana dubbaanka loo tucay noolow haa wuxuu yidhi waa kacay waa inaan kacnaa madaxweynaha waa inaan ridna habeen iyo maalin saasaa socota prime ministerkeena iyo farmaajo meesha dalkan ay gaarsiiyeen haddaad rabta igu nac haddaad rabtana igu jeclow weligaa ha igu rabin laakiin realityga inta aan noolaa ma arkin dalkan meeshu gaaray maanta uu maraayo maanta meel fiican u maraaya hawl fiican bay wataan waa smooth killers laakiin waxaa ilaahay ku salladay ummaddii ay ka dhasheen waxaa ilaahay ku salladay oo lugaha ku dhegan dadkii boobka iyo dhaca kusoo noolaa waxaa lugahaya gacmaha ku dhegan kuwii habeenii maalin dalka dhacaayay waxaa habeenii maalin ku dhegan kuwii shreeyaha dhulka soomaaliya u ballan qaaday waxaa habeenii maalin ku dhegan kuwa aan dhargaynin oo 30 sano dhargi waayey oo caloosha iska weynaatay oo haddana aan dhargaynin kuwaas ayaa maxay tahay lagu haayo waxaan hubaa haddii la wada raaci lahaa ummadda soomaaliyeed ay dhihi lahaayeen waa daalanahay kulli intay hub ka dhigaan dalkeenaan rabnaa nimankaanu inay dayaxa gaari lahaayeen kuwii kale laakiin I'm sorry inta tabartay waan try gareey I'm sorry waxa lagu hayo in kaga dhigan inaan ka fujiyo waa try gareey laakiin I wish inaan kulligeen wada try gareyn lahayn oo aan ka reebi lahayn kuwa annagana dhaha ehelaan nahay
oo haddana habeen imaan xumaanta ka talinayo oo dalka duminayo I wish inaan ka reebi lahayn I wish qof kasta sidii taariikhda loo dhihi jiray Puntland waa nabadii hooyadii ummadda waa nabadii ummadda qof walba oo Puntland ku nool inuu taa ka fakaro oo uu ogaado maanta waxa meesha ka socda haddii Soomaaliya nabad weydo Puntlandna nabad ma helayso state Soomaaliya ka mid ah Puntland maanta meesha ay gaadhay waxay ku gaadhay dalka Soomaaliyeed iyo garabka Soomaaliyeed iyo walaalaha Soomaaliyeed haddii maanta dani maanta inta uu joogay waxa uu qabtay malaha ninkii waxa qabtay oo aan wax yar ka tabanaynay ilaa yaa soo celiyaan bataagannahay ninkii wax qabtay ee la og yahay Puntland inuu wax u qabtay wuxuu ahaa ninkii hadda ka tagay ma fahanteen kan hadda imaaday waxaan ahayn dawladdan cayrsigeeda oo uu qabtay Puntland ma jirto hal xabba Puntland uma qabanin hal xabo waxar xataa hooyadeed ma nuujisiin waxar xataa hooyadeed intuu geey nuug ma dhihinin wax uu qabtay gabdhihiina waa lagu kufsaday waxaa ka jira xaq darro waxaa ka jira cadaalad darro waxaa ka jirta baaba waxaa ka jira dhaqaale darro waxaa ka jira iskuul darro waxaa ka jira dhalinyaradii Soomaaliyeed oo aan xataa awoodi karin maanteeto waxay meel maqaayad cunto kaga cunaan ama gaajaba naftoodii ay hayso haddana state uu wuxuu qaban lahaa wuxuu ka dhaadhiciyo federaalka ma arki karo madaxweynahana iska ridaynaa waa maxamed siyaad kale waa marra kale waa berra kale maalin kasta anagu Soomaali haddaan nahay Soomaali Puntland ma waxaan qaadanaynaa maalin kasta in la dhaho burburkii Soomaaliya ayaga bilaabay burburkii Soomaaliya ayaga ku dambeeyay war ma yeelayno intaan noolahay inuu kale diiday anigu Soomaali saysataan rabaa Soomaali midowdaan rabaa dal baan rabaa dad baan rabaa kulli ummadda Soomaaliyeed baan rabaa oon halka maqnayn maalin kasta Soomaali ma waxay u taagnaanayaan reer Puntland in ayaga la eedeeyo dhorsharna burburkii ayaga bilaabay jabhadii ugu horeysay ayaga ahayd maantana mar labaad ayaga ayaa wax aysanaya madaxweynayaashii kale ilaa xad maad cayrsanaynin maxaa loo cayrsanaa maxamed cabdullaahi farmaajo ma la ii sheegi karaa maxaa loo cayrsanaa meesha waxbaa ku jiro something is fission waxbaa meesha ku jiro reer Puntland dib ha isugu noqdaan especially waan ogahay shicibka Puntland inay yihiin dadka Soomaali ugu wadaniyeysan dib ha la isugu noqdo shisheeyaha inagu dhex jiro oo dalkeena la raba in laga gagato oo nimanka horjoogayaasha ah ee kulligood maxay ahayd dikasi ay u bixisay bishaaro dikasi ilma dikasi hala iska qabto ilma dikasi hooyadaabayna u naxariisanayn adayna ku naxariisanayn awoogaagi dhintayna u naxariisanaynin ayagu waa maxay gataan iyo maxay liqaan waxa kaliya ay ka fakaraan wataa madaxweyne fiican oo daacada oo lilaahi oo dal raba oo dad raba ma rabaan waayo madaxweynaha fiican oo dalka iyo dadka raba oo lilaahiga ah ayaga dantoodii kuma jirto ayaga dantoodii waa inay dhulka gataan waa inay badda gataan waa in dekadaha la gato waa in ay yimaadaan Imaaratis waa in Ethiopia dhinaca furato waa in maxay tahay Kenya dhinaca furato waa in shisheeyana kala qaaqaato na kala gato ayaga meesha lacagta yar ka soo gali jirta waa sidaa ma rabaan Soomaalinimo iyo wanaaga iyo wadaninimo iyo wax isu soo celiya midna ma rabaan waayo dantoodu kuma jirto marka dhalinyarada Soomaaliyeed ama sidii 30 sano aad ahaydeen iyo magafi beerkeed kala baxay iyo darawalnimada iyo maxay tahay askarinimada aad ku waardiyeynaysan ninka dalkiina gubaya ku jira ama adduunku waxay meel ku gaareen inay soo baxda movement adag oo dhalinyare kaca wax kale aad dhaho ma garanayo dhalinyarada Soomaaliyeed oo kaca oo hal mar bal waxa tustaan umada adduunka ina dhalinyaro jirta oo adduunka ku jirta aatiin ilaa maanta aan soo fariistay 5 sano ka hor mise 6 sano ka hor ilaa hadda waxaan dhahaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo kaca waxaan idin leeyahay because anigu nimankan jeebkooda kaliya ka talinayo oo weligood noloshooda Soomaaliya danteeda aan ka fakareynin oo raba ilmahoodana dibadaha inay geystaan idinkana inay askar ka dhigtaan xabaduna inay ku dhacdo qaarkiina inaad badda isku gurtaan maxay hatay weligay waxaan aaminsanaa in ayaga lagu guro container weligay waxaan aaminsanaa nimanka odayaasha ee qabqablayaasha ee group mafiyada ee dalka gadanayo container in lagu shubo ma gafana in loo geeyo oo loo adeer 6 bilood noo hay weligay taasaan aaminsanaa dhalinyarada Soomaaliyeed 30 sano leerar maxay goormay dad noqonayaan goormay kacayaan that's why ay nimankan ilmahoodii dibadaha geystay ee dhadhargay ee kibray ee magaalooyinka kaligood iska leh aysan waxba u kala jecleen waayo dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa damiirkii ka dhamaaday dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa damiirkii ka dhintay damiirkii baa ka dhintay dadku markayna dhalinyaro lahayna sidaa Soomaaliya u baaday u hoogtay bay u baan oo u hoogtaa sidaa Soomaaliya u balanbalsan tahay bay u balanbalaan dadku markayna dhalinyaro lahayn
dhalinyarada afrikaanka wiilka yarkoo kenyaatiga ah wuxuu u dagaalamayaa badda soomaaliya inuu qaato kan soomaaligaana wuxuu u dagaalamayaa inuu adeergeeda naara garab istaago. It's very sad wallahi, it is very sad, so sad weeyaan. wiilka yarkoo kenya dreamkiisu wuxuu yahay inuu jubbaland oo dhan qaato. wiilka yar oo wadamada kale afrikaan ku nool wuxuu leeyahay alla ilahay dhulkaas waaba la kala qaadanaya adiga qaybtaada qaado. kan soomaaliga ah ee dhalinyaradaana waa kuwa maanta oo soo caynayo meelaha wax igu soo qorqorayo marba luuqa ii soo galayo adeer buu ilaalinayaa. adeeroo dalkala naga gatay oo dadka iyagii geeday harsan lahaayeen xataa qaatay iska badaa dhaqaalo u geliyo wadani. marka soomaaliyay dhalinyaroy ummaday sidoo isdaba qabta anu kulley taasaan idin leeyahay. dowladda soomaaliya maanta jirtana ha la garab istaago. anigana mid baan idiin sheegaya waa wallaahi oo billaahi oo tallaahiya haddaan idila hadlaya shaqaan ka yimid noloshayda xataa in dowlow iska badaa ay waxa siisay assalaamu calaykum xataa inaynay dhihin. they don't even know adduunka inaan ku noolahay iyo in kale. runtaa idiin sheegaya, runtaa idiin sheegaya. dadka iu soo qorqoraya ha maxay tahay farmaajo wax siiye farmaajo midnimo qaran waxay farmaajo midnimo qaran meel ku taale ma yaqaano inaan nool nahay. you don't even know we existed. marka waxaan idiin sheegaya waxaan na gubaayo oo aan rabno adduunyada waxaan ka aragnay inaan dalkayga ka aragno. waxaan rabnaa ummad yahay qabyaalada in laga gudbo, jahlinimada in laga gudbo, soomaalinimada inay waarto, dalku inuu hagaago. madaxdan maanta ma ahan forever inay joogayaan. madaxdan maaha inay meesha ka bixeen oo geed yihiin maaha. ma ahan inay maxay tahay barmad ayaga loogu saxiixay maaha. way imaanayaan dalkay hagaajinayaan wayna tegayaan. madaxweynaha ka dambeeya in adeerkaa buu noqon karaa, jubbaland buu ka imaan karaa, puntland buu ka imaan karaa, galmudug buu ka imaan karaa, puntland oo dhan buu ka imaan karaa, all puntlandis oo dhan buu ka imaan karaa. laakiin wuxuu u imaanayaa dad la dhisay soo nadiifa wadankii oo dhisan maxay tahay magaalada caasimadii oo dhisan ayuu u imaan karaa. laakiin haddaad habeen iyo maalin lugta haysataan oo ku dhegnaataan oo weliba dad la yaqaano la og yahay oo maanta haddii dowladdan adduunyadan waari maysido war ha kaa haraa weeye. maanta taariikhda dadka ku dhegan oo qabiiladooda la og yahay oo dowladda habeen iyo maalin saas ugu dheganna taariikhda soomaaliya ayaa sheegi doonta. maanta haddii dowladdan dunto dowlad ka dambayso oo wanaagsan ever ma imaanayso. anaa runta idin sheegaya wallaahi tan hadday dunto oo billaahi hadday dunto oo adduunkii aqoonsadeen oo sharaftii dalka soo celisay oo maanta nin kasta shaqadiisii si nadiifa uga soo baxay si nadiifa. prime ministerkii madaxweynuhu islama hadlayaan mid walba waa busy. maxay tahay arrimaha dibadda iyo arrimaha dalku islama hadlayaan mid walba waa busy. awalna waa isku daba dheganaan jiray laba la isu haysan jiray. prime ministerkii madaxweynuhu isqabso maxay tahay kan dibadda day kan madaxweynuhu isqabso ii shaqeeya ku shaqeeyo lacagta isisiina aan wada cunno dalka aan gubna aan wada waxayno. no waxaas oo dhan waa soo dhamaadeen. maanta waxay maraysaa dalkii aan soo celino legacy aan reebno ayay maraysaa. dal legacy ayaa dani iyo kuwa aan meel fog ka fikraynin ay ka xun yihiin. kuwaasna waa ehelkayga iyo waa dadkaygii midna uguma eexanayo. waa inaan runta u sheegaa oo aan idhaahdaa alla ka baqa, ilaahayna abuurtay ka baqa. soomaali waa sakaraad, waa miis bay saaran yihiin. falembayaasha aad kala babaxaysaan joojiya. falembayaasha aad kala babaxaysaan joojiya. soomaaliya waa qof 30 sano sakaraad ahaa oo sariir saaran oo 100 falemba ku socoto. maanta wax u baahan in falemba laga saaro oo xumaan dhulka loo geliyo. bal qof sakaraad aad u falembayaasha dhan ka saaran naftu way ka dhici. nimanka qabyaalada ku adeeganaya kulligiin intaad kacdaan ummad yahay haddaad damiir leedihiin, damiir haddaad leedihiin toosiya. because qaladka haddaan la iska qabanin qaladkii waa waxa intaan soo gaarsiiyey. qaladka haddaan la iska qabanin oo aan walaalkaaga qaldan la dhihin yac la dhihinin jooji waxaa wadin la dhihinin naga daayo xumaantaan aan dhammaanaynin oo habeenii maalin socoto 30 sano 100 sano hawada nagala baxaysa naga daayo haddaan la dhihinin kulli meel in alla inta raali ka noqoto meel xun u dambayn. kuwa dibadaha jooga ama ha joogaan maxay tahay meeshan la yiraahdo Ohio ama ha joogaan Minnesota ama ha joogaan state of maxay tahay USA. waxaad ogaataan haddaad dalka u shaqaysaan maanta America aa u shaqaysaan oo aad dalkiini hooyo xumaantiisa ka talinaysaan waxaad ogaataan halkan waxba kuma noqon doontaan. dalkana taariikhdiina waa taallaa. taasaa idinku bishaareynaya. tanna waxba kuma noqon doontaan oo meesha 2 qof oo Soomaali joogto ayaad wax ku tihiin. dadka Soomaaliyeed oo ku nool ayaad tirahdeen waa matalaynaa. dadka Soomaaliyeed oo ku nool dartood ayaa shaqooyinka laydinku siiyey. haddaad markaa maalin walba u taagnaataan inaad bursataan dowladda Soomaaliya ka jirta haddayna in adeerkiin ahayn
haddaad u taagnaateen inaad bursataan xaqa ayaa idin qaban doona idinkana taariikhda ummadda soomaaliyeedna waad geli doontaan waayo adigu markaad u shaqaynayso america oo aad minnesota ku raaxaysanayso oo ubadkaagu kuu degan yahay hooyooyin iyo carruur iyo agoon aan awoodi karin baa jira aan waxba haysanin baa jira aan awoodi karin waxna aan haysan baa jira hooyooyin iyo agoon forever ku jiray dhibaato iyo dagaal iyo qarax baa jira markaad kuwa magaalada jooga minnesotana aad tiraahdo ii kaalaya ii isboorgareeya kuwii dalkiina aad tiraahdo in adeerkay ma haysta kan kalaan ka ridaaya oo dumiso dadka soomaaliyeed cawaan maaha qof walba gaaladiisu hoosta ka gelaya wuxuu leeyahay gaaladaaba ii dhaanto qofka soomaaliyeed wallaana qof soomaaliyeed waxba u hiilinaynin qof kasta oo soomaaliyeedna waxaan kula dardaarmaya oo ku nool minnesota iyo meel kasta inaysan u hiilin qof aan dalka soomaaliya u hiilinaynin qof madaxweynaha soomaaliya jooga qabyaalad ku riixaya oo shalayna asagoo dowladda maraykanka magaca soomaali ku tagay ugu imaan waaye xasan sheekh because qabyaalad darteed ugu imaan waaye oo yiri oo waa ninkaa xunkoo hawiye anu ma aadayo meeshiisa maantana le qabyaalad ma raba ninka soomaaliya joogo ninka mareexaan ma doonayo oo ma aadayo leh ama waddanka ma iman karaa markuu electionkiisa la gaarana wuxuu ku sugayaa adiga inaad u election garayso oo aad tira oo ha mar labaad waa inaan siinaa minaan dalka soomaaliya iyo naagaan dalka soomaaliya u hiilinaynin qof soomaaliyahow oo joogo qurbahow oo ameerika ku noolow ha u hiilinin waayo kan soomaaliya jooga qofka u hiiliyey ayaa walaalkaaga ah qofka dalkaaga u hiiliyey ayaa dadkaagii ah qofka dalkaaga u hiiliyey ayaa adigana kuu hiilinaya brito haddaad dalkaaga uga baahato inuu kuu hiiliyo qofka dalkaaga u hiiliyey ayaa kuu hiilinaya haddaad uga baahato hiilo laakiin qof dalkiisii gubaayo oo adigana kula kaalay soomaali baan ahay soo raaco kaala soomaali baan ahay maxay tahay garab istaag dalkiina la madaxweynaha jooga isku cid maninoo ma rabo adna birito kuma hiilinaayo meelna kuma geynaayo ma fahamtay marka walaalayaal ummadda soomaaliyeed ay dhalinyarado walaalaha soomaaliyeed ay faadma guuriya dhammaantiinna waan salaamaya walaalayaal masajka gudbiya oo gaarsiiya laakiin kulligeen arrintan waa inaan ka wada hadalnaa qabyaaladan 30 sano nala degatay madaxweynaha markaa jooga haddaana ku cid ahayn aan rabinin oo aan qabiilka isugu soo raacayno oo la dhahayo waa waray soo yaaca waa hawiyo daarood buu necab yahay soo yaaca waa mareexaanood wuxuu necab yahay kabla dhexe soo yaaca waa hebelow kar ma doonayno dal kuma hagaago dadna kuma hagaagaan habeen iyo maalin dalkooda duminayna ma garab istaagi karno umana hiilin karno waxa socda oo ka socda maanta Jubbaland iyo Puntland madaxdeeda ay ku dhaqmaysana ma doonayno mana garab istaagayno waxaan rabnaa dal waxaan rabnaa dad waxaan rabnaa ummad qoomiyad la dhaho Soomaali inay gadaal u soo noqoto nabad iyo Soomaalinimo waxa noogu dambeysay xilligii Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariisto qabrigiisa Allah u nuuriyo ayaa Soomaali ugu dambeysay qofkii Soomaaliyada Soomaaliya ku noolaa weligiis ma arag nabad annaga nabada aragna alxamdulillah qaxi ma qolaba meel buu ka tuuray laakiin always waxaan la ciishooda oo always aan dareema 30 sano aniga aan meeshaan wax ku baranay orday shaqeynay reerkaygu wax taraayay ummadda Soomaaliyeed sida ay ku noolaayeen iyo sida ay ku jireen ilaahay baa ilaalsanayay raxmaanka intii dhimatana Allah u naxariisto millions of them 10 million baa sida u dhimatay ولينا وحان ورنا ككعاية قبيل الدنيا دي كان انتي لبا سنة كلية أفريكان كان يسدقاليين only 2 years أي أفريكان كان انتي يسدقالين بيد دلكودي وحي كان ديجان دلكي أدوكو وقروح لبنا only 2 years أي يسدقالين أو ولي بتاريخها أو لالبونا ساسا يسكو دلين سومالي بس هو يسود شيء لكن 2 years أو ليابي أي يسدلين قارت اسكتشران دقا اسكتشران مرح اسكتشرانو من دل يسكو دميان حدنا ما انت دلكودي ودلك وصرية أفريكانك لكن dadkaygi wali waxay taagan yihiin oo kakac ninka isku qabsaday maanta madaxweynaha isku cid manihiin kuwii professionalka oo qoonta laha oo bartay wax oo la dhahaayay ummadda Soomaaliyeed bay dhexdhexaad u noqonayaan baa ugu horeeyo waxa soo qaadanayo oo le oo waa inaan tagaa oo soo qaata maxay tahay waxaan diyaarinayaa wax ka hor yimaada madaxweynaha waxaan diyaarinayaa dad banaan baxa qofkaasuna Soomaalinimo ayuu meesha ku tagay bal imagine qofkaasi Soomaalinimo ayaa lagu doortay oo meesha uu joogo Soomaalinimo ku tagay ka sheekay wallahi ilaahay walaalayaal dalka haynoo hagaajiyo ilaahay ummadda haynoo hagaajiyo wax kale aan dhaho ma garanaayo
laakiin aad bay qalbigayga waa dhiigaya wadnahayga waa dhiigaya waxaan jeclaan lahaa ummadda Soomaaliyeed beeradan disin aan ku arko waxaan jeclaan lahaa ummaddu inay wax ku qaadato wixii soo maray waxaan jeclaan lahaa ummaddu inay isu naxariistaan meel fogna ka fakaraan danta ummadda Soomaaliyeedna ka fakaraan waayo danta guud haddaan laga fakarinin dan gaara waxba ma tarayso danta reerkayga reer Puntland kaliya wax ma tarayso haddaana danta ummadda Soomaaliyeed ka fakarin tan Jubbaland reerkayga waxba ma tarayso tan Xamarland reerkayga waxba ma tarayso tan reerahayga oo dhan waxba ma tarayso haddaan danta guud ee ummadda guud ahaan aan laga fakarinin ummaddu waa inay kulligood ay u habaysan yihiin oo aaminsan yihiin waxa la dhaho danta guud hadda caawa dhan 30 sano ay naga soo qaadatay danta gaareed danta qabiileed danta reereed danta xaafadeed danta qoleed ilaa qol ay nagu xirtay weli ma waxaan u taagnaanaynaa inaan dhahno danta xaafadeed danta qoleed uma taagnaan karno qof kasta oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah waxaan ka codsanayaa inuu madaxweynihiisa iyo prime ministerkiisa maanta ku mintido inuu dalkiisa u taagnaado inuu qabyaalada diido inuu maadeernimada diido inuu in adeerka khaldan ee 30 sano dalka soo cunayay ee tuuga ah ee gatay half of maxay tahay magaalooyinkii kaligiis leeyahay waa inaan diidnaa oo xasan sheekh baa noo fiicna xasan sheekh shalayta waa taa dhahayseen xasan sheekh waa hawiyo xataa xafladiisa ma tagayno oo Minnesota-dan xafladiisa la tagi waay maantana waxaan la leeyahay oo xasan sheekh baa noo fiicna xasan sheekh because wuxuu kugu fiicnaa kaala wada cunne kaala wada gadanne kaala wada iibinne kaala ila gaday kaala ila qaaday kaala ila ma jirto arintaas waxaas ay baa cunay dad xalaal oo waxa yimid rabo dalka Soomaaliya inuu xalaal noqdo dad aan ayagu biyo koob shay ah ka cabin baa yimid dad ayagu raba inay wax reebaan oo ay aayihii ummadda reebaan ayaa yimid haddaad caqli leedahay dhalinyarooy haddaad caqli leedahay wiilka yaroo maxay tahay caqliga loo maanta caawo ilaahay baan ku dhaartay caawo mid baa wuxuu ii soo qoro waan bloggareeyay laakiin intaana bloggareyn message-kiisa copy baan ka sameeyay wuxuu ii soo qoro ma taqaanaa waxaan iri Soomaaliya qabyaalad waa ka bixi weydaan sawiraan leeyahan ku dul qoray oo ka fiirsha wuxuu ku jiraa meesha history-gayga waxaan iri qabyaalad waa ka bixi weydaan Soomaalinimada inaan kaga baxo waay muxuu ii soo qoray wallaahi billaahi tallahi Soomaalinimada sheegaysa hawiyaan ka jecelahay biyo daaru igu soo qoray wallaahi billaahi tallahi Soomaalinimada sheegaysa hawiyaan ka jecelahay ma fahamtay marka kuwiina qabyaalada waardiyaha ka ah oo aan aqoonin inay jiraan adduunka maanta meesha aan joogno raxmad iyo farxad iyo wanaag baan ku noolnahay alxamdulillah ilaahay ha barakeeyo dalka aan ku noolnahay waayo waxayna bareen waxa uu yahay unity waxayna bareen adduunka inaan Soomaali indhayar muslim gaal cadaan madow blue green inaan hal noqon karno isla shaqaysan karno is ixtiraami karno isla labisan karno meel isla tagi karno xijaabkaaga dhig lagu lahayn saarad u egtaa lagu lahayn Soomaali maxaa u tabna wuxuuna baray wax annaga dadkayagii ay weli ka indhala yihiin oo ay habeen iyo maalin ku hayaan yaa ree hebel ayuuna baray habeen iyo maalin ay ku hayaan yaa ree hebel ayuuna baray marka ilaahay ha barakeeyo dalkeennan aan ku noolnahay Allah ha barakeeyo dalkeeni hooyana ilaahay ha ka qabta cadowgiisa waa dadkiisiiba cadow ku noqday maanta ninkeen yaati markuu idhahaayo oo madaxweynahayga u soo diraayo fartiin meel u soo qoray uu leeyahay hadduu rabo inuu ka hadlo Jubbaland annaga hanala soo xiriiro uu leeyahay yaa halkaa ay dhigay gudinay imaad goyseen haddaan gobolkee kugu jireen yaa halkaa ay dhigay halkaa waxa ay dhigay in adeerkayga laciifka ah Soomaaliyeed ee laciifka ah ee caqliga badan lahayn ee meesha fog aan ka fakaraynin ee taariikhda ummadda uu soo martay ku galgashay ee wuxuu cuno kaliya dadka u leynayo qoorta uga goynaya ee wuxuu cuno kaliya shisheeyaha u daba socda ee wuxuu cuno kaliya ummadda u gumaadaya ee sad u dilaya ummadda Soomaaliyeed darsinka u dilaya kaas ayaa igabay kaas ayaa ii kasay inuu Kenyatta xun oo huurale oo ahuru ah inuu idhaho maxay tahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo anaha ila soo xiriir hadduu rabo inaan ka hadalno maxay tahay Jubbaland yaa ay baday kaas ayaa i baday iyo in alla inta uu wata asaga la midka ah ee ilma dig ka sii walaashay ilaahay ha barakeeyo waxaan jeclahay magacyada ay bixiso wallaahi oo billaahi magacyada ay bixiso innaba caadi ma aha bishaaro waxay tii reer dig ka sii dhalinyaro Soomaaliyeed oo iska caabida oo dalka intay container ku xiraan war hadda ka hor la dhahay taariikh waxa dhacday wadan Afrikaan ah walaalaha ku jira haddaad ugu dhaantaan sheekadaas
hadda koor waxa li wadan afrikaana mid u ahaa ma aqaan ma Nigeria ma maxay wadan afrikaana ayaa deg waaya la yiri si kasantii la yeeray wuxuu ka deg waayay adeer dikasiyo kale wuxuu ka deg waayay group of mafia wuxuu ka deg waayay adeer geedanaaro kale maxaa dhacday waxay isula tageen madaxweynihii markaa haystay Anwar Saadaad oo haysta Egypt baa yiri kulligiin ii imaada miitur u qabtay wax alla wixii dikasi ahaa markay yimaadeen oo kulligood soo xaroodeen oo kulligood u gacanta ku dhigay ayuu xabsi wuxuu ka dhigay kulligood house arrest wiil dhalinyarana waa u dhiibay wadanka wadan u ahaa ma aqaan hadda soo qori kartaan walaalayaal wadankaas waa taariikh caan ah weeyaan ninkaas ayaa caawiyay gobolkaas qoraalkiina ma arkaaye xoogaa indhool baa noqday walaashay soo dhow aad baan ku salaam ya xabsa wadankaas waxaa caawiyay Anwar Saadaad ninkii garanaya taariikhdaas waa taariikh jirto oo cad wiil dhalinyaraha u dhiibay dalkii wuxuu yiri dalka daji dalkaasoo nabadan ka aqaana ciidankeena iyo awoodeena waa ku garab dhigeena wiilkii dalkii markuu dajiyay odayaashii gagaboobay oo 10 sano lagu soo haayay Egypt baa diyaarada lagu qaaday waxa la xabsi kale oo house arrest ah gali laakiin dhalinyaro qiimo leh ayuu lahaa wadankaasi oo waxay codsadeen in la caawiyo laakiin annaga dhalinyaro ma qabno fiican dhalinyaradayda kulligood waxa waaye geedanaare waardiyeynayaan iyo kii dalkiisa gadanayay iyo kii badda gadanayay iyo kii only waxay kaliyo noloshoodii dhan waxay ka dhigeen wax afka loogu shubo kali ah ayay ka dhigeen annaga waxaana gabay oo na baabiye Soomaali haddaan nahay waa geedanaar oo kale kuwa waardiyeynaya waa dhalinyaro Soomaaliyeed geedanaar waxay ahayd 10 waad aragteen maalin wuu yaraada maalin waa weynaada maalin kale haddana waa oday waad aragteen shaydaan baad moodaa adeerkay maalin waa yari hamaan waa weyn hamaan waxaas oo dhan waxa keenay waa lacagtaas ciyaalkii yaraa masaakiinta ku xeeya nin dhahay war lacagtan la isiinayo in long run mustaqbalka xagee geynaysaa war dalkayga war dadkayga war taariikhda ummadda war awoowayaashay waxay soo qabteen nin dhahay ma jiro mid kasta wuxuu leeyahay oo maxay tahay xoogaa baa la siiyaa dhalinyarada dee asagu dhalinyaradu u fiican yahay dhalinyarada muxuu ugu fiican yahay dalkii dhan u liqaya geedii xataa ariga waxay harsadaan ma lehe dad iska badaaye ummadii dhan u dhoofsada dalkii oo dhan oo barigii iyo badiiba wixii dhan buu kala baxa jeebkiisuu ku wada shubtay calaa iyo xaal dhalinyarada Soomaaliyeed ama dhalinyaradii wadankaas Afrikaanka inuu Nigeria ahaa iyo inuu ahaa Liberia wallahi ma aqaan laakiin waa soo ogaanaya waa taariikh cad oo la ogyahay Anwar Saadaad baa caawiyay markuu la yaabay dalkan gaasna waa lahaayeen bale marka Nigeria inay taan u maleynaya waxa la yiri markuu la yaabay dalkan oo si kasantii la dejin waayay buu u wada yeeray group of mafia ilma dikasi dhan u yeeray markay yimaadeen buu wadankii nin dhalinyaro u dhiibay wuxuu yiri baa la yiri ku yaaca dhalinyaro wadankaanu xalaysana inta rabaa marka sorry macaanto masoo kugu soconaya dalka Soomaaliya marka wuxuu u baahan yahay walaalayaal Soomaalinimo wuxuu u baahan yahay gacmo wada jir wuxuu u baahan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay istaagaan oo xaqa u hiiliyaan oo dalkooda u hiiliyaan oo iska daayaan nimanka tuugta oo dikasi ah oo dalkoodii oo dhan dajiyay 30 sano dajinayay walina raba inay sii dajiyaan madaxweynahan isku cid maniin ma rabno ka kale isku cid ma ahayn ma rabin because dantooday wataa maanta dawladdan sharafta badan waxa ay qabatay imaaraatis habeenoo madoobay dharkoodii qaateen because adduunyada ayaa smooth killer waaye tartiibtooda ayay qalinkooda ku dagaalameen waa ku daayeen dekadii berbera ayagoo la ogeyn bay ka baxeen tii oo boosaaso ayagoo la ogeyn bay ka baxeen minis qofkii damiir leh ayaa garan kara waxaan ka hadlayo qofkii damiir leh ayaa garan kara waxaan ka hadlayo shisheeye dhan ayay gadaasha ka soo mareen siyaasad qabow oo qurux badan oo ilaan siyaasadaadu markaad iswaalwaali karto waa markaad super power sidaan ahaan jirno oo kala tahay oo hub leedahay oo diyaarado leedahay oo maraakiib leedahay maanta ma qabno xataa moota ma qabno moota xataa Soomaali dagaal ku gasho ma qabno waxayna yarka aan haysano dawladda shisheeye ma isaga celin karnaa dalal shay ma isaga celin karnaa dakadihiina waad cunteen diyaaradihiina waad cunteen maxay ta maraakiibtiina waad cunteen wax maanta dal shisheeye la isugu taagtaagaan qabnaa waa may mid kastaba waa inaan smooth killer raggaan maanta jooga sida ay noqdeen lagu noqdaa oo tartiibtaada hawshaada loo wataa yaa laakiin diidan meel kasta adeer madoobe iyo kuwa kala aftada ku dhagan
kuwii dad mataqaana la dhahayo war dad daldoona waayo oo dalkay wax ka hagaajinayaan waa kuwa ugu daran maanta waa kuwa ugu daran xaggan ma imaan karo meel kastaa kaga hortegaynaa ma rabno dowladdan ma arki karno dowladdan ma waxayn karno prime ministerkeena iyo madaxweynaheenaba minnesota way imaanayaan minnesotana markay imaanayaan waxaad ogaataan dadka madaxda ka noqday ee minnesota u shaqeeya kala bax kutubaha qabo dadka Soomaaliyeed taariikh baa dhici doonta taariikh because reer Minnesota dadka ugu jecel dawladda Soomaaliya ayaa ka buuxa shicibka masaakiinta ah oo aan fakarayn oo guryaha saaran kulli markay maqlaan prime minister ka yimid ama waxa yimid farmaajo kulli barnaamijka u soo baxayaan nin dambe oo matali doono ummadda Soomaaliyeed oo dalkiisa dubanayna ma dhici doono wallahi inuu la dhici doonin nin dambe oo maanteeto ama wax ku noqday ama maxay tahay xaafad madax u ah ama maxay tahay siriga ka shaqeeya ama si whatever ka shaqeeya oo aan dalkiisii u taagnayn iyo dadkiisii wallahi qof dambe oo Soomaali ah dooranaynin because xaqa ayaa dilaaci doona dawladdaana ilaahay baa wata alla nunu watana wehel uma u baahna reality-ga waa taa annagana inta tabarteena xaqa waa u taaganahay waana garab taaganahay waxaana rabnaa dawladdan inay success noqoto tan ku xigtaa inay success garayso tan ku sii xigtaa inay success garayso markaana aan nabad dadkeena ay ku raaxaystaan oo la wada nabadoobo taa ayaan rabnaa waxa kaliya aan raadinayna waa taa ninka hadda oo digdigdigta ku haayo oo maxay tahay ku dhaansi garaynayo Puntland hal qof xataa waxar u caanisiyaa la soo qabto waxar xataa caana ma siinin hal xabbo oo waxar xataa caana intuu qaaday hooyadu geey caana ma siinin markaasuu maanta baq raaya oo baq leeyahay markaasuu leeyahay Jubbaland anaga in garab taagan markaasuu leeyahay Jubbaland isku garab baynu nahay waxaas waa la iskala soo baxay Soomaali waa daashay runtuna way imaan inkastoo wali aan la ahay dhalinyaradii Soomaaliyeed oo kulligood waardiye qabiil ay yihiin wali ay qabiil waardiyeynayaan haddana one of the days sida Afrikaankaas kale ayaa waxa soo bixi doonta dhalinyaro ciidooda jecel oo calankooda jecel oo wax kale aan maqlaynin wax kalena aan arkaynin ilaahay baan ka baryaa inuu ituso one day intuso walaalayaal dhamaantiin aad baan idin salaamay intiina wanaaga jecel inta xumaha jecel rabbi ha noo soo hagaajiyo laakiin annagu waxaan u taaganahay dadka xaqa ilaahay inaan u hadalno waxaana dhibaysana waxyaabaha socda aad bay noo dhibayaan especially aniga aad bay ii dhibayaan reality markaan maqlo marka waxyaabaha qaar la ii sheego waxaan ii muuqata dadkan jaahilnimadii 30 sano ay ku soo jireen inay wali ku sii jiri doonaan inayna ka baxaynin in dalkii sii dhimanayo inaan soo hagaagaynin ayaan istusaya لكن إلهي مرهين الرحمنكو دمانتنا وان سلام يا ولا لها قايلة بشارع على القيفات صوغ الشيء ما أنت أنا ديكسي كوها حاجاكم مقنيت ديكسي يا المديكسي ما أنت برسنا يوا مقنيت هذا صوغ الشيء ولا شيء أدبان دين سلام يا دمانتنا ولا ليا لكن حنت كل سنة يا ريم من صوت تهداتين كل جيم بميلا جوكتان بصومالية إنا موجسان إن عاد ديارتهين إنا دفاع عن دولة دينا يدلكينا دولة waxa weeyaan waa bilowgii haday dawladdan u tagto meel fiican bay dalka uga tagaysaa ka imaanayo meel fiican u dalka ka qaadaya sidaas ayaa nabadda iyo ku gaarayna guusha weyn laakiin hadii maalin walba mid la dhaho isku cid ma nihin oo la ruxo oo la ceersado waxa gaagaya ma jira dawladdan maanta joogta dawlad ka fiican oo asi boorgarayn laheedeena wallahi baan ku dhaartay inayna jirinin because dantii runta ahayd ee guud ee dalka ayay ka shaqaynayaan diyaaradihii bay doonayaan maraakiibtii ayay doonayaan maxay tahay hubkii ayay keenayaan ciidamada ayay tababarayaan waxay diideen dhuqdhuqdii shisheeyaha waxay diideen kala maxay tahay qaraabtakii shisheeyaha waxay diideen nimankii gobolada habeen iyo maalin diyaaradaha sii saarnaa oo jeebka soo buuxsanayay waxay diideen dhulkeena in la gato oo habeen walba haaf laga xaraashto waxay diideen in ummadda Soomaaliyeed mar walba lug baad ahaato waxay tuseen adduunka inaan soo noqonay ayay adduunka tuseen dawlad ka fiican oo aad hagaajin lahayd oo aad u istaagi lahayd oo aad garab siin lahayd ma jirto ilaahay baana kugu dhaariyay dalkaaga ha ku taageerin qabiil ee waxaad ku taageertaa qarannimo Soomaalinimo midnimo ilaahay baan kugu dhaariyay qabyaalada ka weyno haddaad aqli leedahay qabyaalada ka bal isweydii waxa ay ku qabatay kablalax iyo maxay tahay qabiilada la sheegayo waxay ku qabteen bal isweydii hal reer dal ma sameeyo hal reerna ummad ma noqdo qoomiyad ma noqdo ummadi waa qoomiyad waa dad isku yimid waa dad nabad wada raadsaday waa dadka aan la noolnahay maanta afkoodina aan ku hadlayna lana shaqaysanayno xafiisadooda aan la fadhino ixtiraamka iyo sharafta xataa aan noo quurin inay si xun noo eegaan maxaa dadkeeni Soomaaliyeed ee isku midka ahaa isku afka ahaa isku dhaqanka ahaa walaalaha ahaa wada dhashay kulligood isku ekaa
maxaa habeen iyo maalin xumaantooda le loo raadinaa kacay reer hebelaan nahay kacay madaxweynahan ma rabna isku cid ma nihin madaxweynahan adeerkiisaa nabcayn ka kaca oday baa la ii soo diray ka kaca leh oo leh jubbaland yaan taageersanayo dee ina madaxweynihii maxamed siyaad wiilku adeerka u ahaa ha naga kaxeey waa iska garanaysaa waa qolooyinkeenna xagga ayaguna oo qolaba mar bay sii caraysaa war waxaasna ma anfacayso waxaa ina anfacaysa soomaalinimo yaa ummad yaa soomaali waxaa ina anfacaysa soomaalinimo maalinta qabrigana la dhigana waxaanu nahay ummad nebi maxamed ummatul islaam wax kale oo na raacayo habartaa kuma raacayso cunugaa kuma raacayo awowgaa kuma raacayo ninkaaga jeceshaa kuma raacayo only 2 mitraa lagu soo dhigaya waxaana lagaaga soo tagayaa adoo le ummatul islaam marka ilaahay ha laga baqo oo allaha loo noqdo oo dalka si qalbi ah oo nadiif ah kulligeen aan ugu wada istaagno walaalayaal ilaahay baan ku dhaariyay aan iska dayno qabyaalada soke iyo nin jeclaysiga iyo nin maxay tahay ilaalinta qabyaalada maanta dhawaardiye kama ahaan karna anigu in adeerkay dani kama ahaan karo waardiye because khaladkiisa batay war waardiye qabiil lagama ahaan karo laakiin qaran waa la ilaalin karaa qaran waa ilaalin kartaa waardiye waa ka ahaan kartaa laakiin qabiil aan dhinacna kuu kaxaynayn inuu qolku ku sii kala xirxiran ma ogiye walaalayaal maxay tahay lagama noqon karo waardiye lagama noqon karo qaran laakiin waxaad is leedahay qarankaagii dalkaagii hooyo maanta Eritrea waxay meel ku gaareen jacaylka ciidooda iyo dalkooda hadday Eritrea ba qabiil way qabaan hadday sii kala saar lahaayeen maanta meesha ay gaareen ma gaareen waxay meel ku gaareen waxa weeyaan Soomaalinimadooda maxay tahay Eritreanimadooda waxay meel ku gaareen waxay aaminsan only Eritrea annaga laakiin waxaan rabnaa inaan dhaano oo maya Axmed Madoobe adeer geedanaar aan isku cidnahay maya Dani baan isku cidnahay maya kan jooga gadal mudug baan isku cidnahay maya kan jooga Kismaayo aan isku balkii maxay tahay Baydhabo baan isku cidnahay wallahi cidinayna waxba idin tareenin oo cidinayna meel idin geynaynin oo cidinayna dal idin sameeyay hadday idin sameynayso 30 sano la soo dhaafay oo adduunka taariikhda mugdiga ka gasheen oo adduunku sanka ka qabsadeen ayay idin ka saar lahayd Soomaaliyeed adduunku intay ma taqaana sanka ka qabsadeen ayay idin ka saar lahayd adduunka ayay sharaftiina tusi lahayd qabyaalo adduunka ceebtiina tustay adduunka xumaantiina tustay adduunka fawaaxishadiina tustay adduunku wuxuu noqday war waxaan maxay ahaayeen cawaanta ninkan anaga maanta haysta intaan la qaadanin la dooranin muxuu dhahay aniga kuwa bayradkooda la sheegay yanka caatada oo la dhahay baday ka soo babaxayaan hadaa madaxweyne noqdo qaaradan waa ka tirtiraya markii la dhahay maxaa uga tirtiraysaana wuxuu yiri adduunkan waxba kuma soo kordhinayaan de waxba kuma soo kordhinayaan ma nin maanta adeergeeda naar waardiyeenayo oo aan taariikh kale aqoonin oo wax kale ka fikireen oo aqligiisa qaad u cuno iyo adeergeeda naar inuu ilaaliyo ma ogiyo Soomaalinimo ehelnimo ummadnimo qoomiyadnimo wixii awowgiis u soo dagaalamay xataa aan garanaynin ma waxaan laga tirtirin baa waxaan u baahannahay nin Soomaaliyeed oo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Camala oo marka la soo baxa oo Soomaalida qaarada ka tirtira kaasaan u baahannahay markaas ka dambe ayaan isjeclaanaynaa markaas ka dambe ayaan ilaabaynaa qabyaalada oo aan dhahaynaa ciideena aan dhahaynaa shalayto Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo niman kamid ah noo soo dagaalamay oo dal Soomaaliya la dhaho noo sameeyay maanta waxaan u baahannahay adeer Sayid Maxamed Cabdulla Xasan inuu soo noqdo koorta inuu naga wada jarjaro maca aniga iga bilaabo maca adeer maxay tahay geeda naara ku xijiyo kulligeen mid qoortan ka jara u baahannahay oo dal Soomaaliyeed noo soo celiya oo 1 million 2 million markay dhintaan saaxiga aan keeno miirka aan keeno oo baadiye iyo hoog iyo ba iyo rafaad iyo aqoon aan dib aan ugu noqono hadda anagoo aqoon leh oo dhalinyarada Soomaaliyeed aqoon leeyihiin ayaa waxa laga leeyahay warkaale midooba warkaale iska qabta nimankan ilma dikasi oo 30 sano idin cunaayay oo dhiigiini miirtay oo idin stroke in gashtay kaale iska celiya idin kale وسؤال ده وين الدقيقة يا سلام أنا الدقيقة وحلا ما قرنايو دقيقة يا سلام بل أطبق ديجا كي وباشالي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دمانتي ولالو ودني ددالالي ودني ددالالي حتى عمليه والله أنا وأفره ددالي إنه سكور أردينه وحوال عملنا لوقا بانية بشارة يموغي أول نيشي كيدا مع الصوماليات
كل قد واردي قبيلة كيين كان قبيل كديدالي من ماذا دونالي من ماذا ندونالي كان ديدن هاوشا ودي بشري دحد السالة كان ديدن ودي بشري دحد السالة كوبعينا يالي والله ليال وان سلامة يا دمانتينا ومدى الصومالية ميل كستو أجوكتان وحان دلي هاي دالكا هلو ودا استاغو دادكا هلو ودا استاغو ومدى الصومالية وامد قبيالة دلقو أديغانا يهلا ديدو نمانكا ديكسي فيلنكو أي فهمين oo ay 30 sano ku soo shaqaysanayeen waa riyaa hebela madaxweynaha isku cid manihin ma rabno kaas isku cid manihin ma doonayno annaga waxaan rabin dantayada qofkan ka arki weyna ma rabno kaas annagu inaan dalkii gadanu noo diido ma rabno sheekadaas ummadda Soomaaliyeed ha ka istaagaan ha ka midoobaan especially dhalinyarada Soomaaliyeed arrinta ayada ah ka kacaan hana diidaan waayo dalkaanu dhalinyaro u baahan yahay adduunkan wadamadii kale oo dhan dhalinyaro badbaadisay dhalinyarada Soomaaliyeed waa inay dalkan badbaadiyaan hadday dad yihiin haddii kale tara de badooda hay isaga daataan inay noolaadaanba ma aha waxay ku noolaadaan hadday 100 nin oo magafayaal ah oo dalkooda ku nool iska qaban waayeen badda hay isaga daateen magafa hay iska qaqasho hay iska aadaan anitaas aamsana haddayba raganimadoodii iyo dadnimadoodii dhalinyaradii Soomaaliyeed ay noqotay inay xabadda u qaadaan inay asaga waardiyeeyaan inuu jaad yar u gado inuu xoogaa yar siiyo dalkii dhaman aan inuu asagu 100 nin ay dalkii dhamaan ayagu leeyihiin waxay rabaan ay ka sameeyaan dawlad ayna u ogolayn horumar ayna u ogolayn onni madaxweyne yimaado wax laga gata kaliya rabaan onni madaxweyne imaado oo ayaga wax laga gata bas ay rabaan wax kale ma rabaan madaxweyne daacada dal soo celinaayo ummad soo celinayo dhaqaale soo celinayo qoomiyad soo celinayo ma la rabo waxa la rabaa oo kaliya mid ayaga dig kala siiya waxay cunayaan la digsiya hadduu la digsiin waayo qabiilkiisa ma rabno waay marka insha Allah walaalayaal waxaan kaga tagayaa dhamaantiina أدبان دين سلام يا وحن كجتك يا خير يا برواقو إلهي وحن كبريا ذلكني هنوه جاجيو إلهي وحن كبريا أمد الصومالية هاسكدوبو إلهي حقها تصو إلهي دنتو ده جرانسيو دنتا أمد الصوماليات الله يدين جرانسيو دنتينا ودلكينو هجاجة وأمدينو إسراعة وهالقف أو صومالي أو عند منين أو عن حقدره اللودرين تاس أيا دنتينا نبض أتكون ولاطو أيا روحوا البكو جارسة أمريكا نولشة نبصينين وحين سيان نبضة أنا قنوا شقي صرني وأوردني حل جاسن شقك إمادي أولادهم كرسنا نولشة وحويان نبض هذا شو حكلورن هاد حسا دين تادي بعد هليسا لقن كاجي بعد قبصنيسا نبض بعد هيستا وحكلورن وحويان ولا نمبر 1 dadku hadayna nabad haystaan diinna leeyihiin waxba kama halaabaan laakiin dad nabadiina diin aan lahayn oo ummadii gowracaya ilaahay yirdaaya oo habeen maan dalkoodii gubaya oo habeen maan wax dhacaayo anu ma aqaan waxa tin dhul gariir la idin ku dhicin wax kale oo ma aqaan dhulka uu idin dumin wixii kale oo dhan waa idin ku tijaabiyay wixii kale oo dhan biyo ku dhamaatay qaxade isdishe labadii xaaraanta u heshiisay is cune istoogte isqale waxa idin dhiman oo kaliya waa in hal mar daad idin qaado oo leeyin waayo haddii kale isdaba qabta walaalayaal intaasaan kaga tagayaa ilaahay xaqa hana tuso allah nacfiyo ilaahay raxmaanku wixii dambi ah iga cafiyo wixii oo mataqaana wanaagana ilaahay ha idin garansiyo walaalayaal dhamaantiina waxaan kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa su'aal da'weyne bal dalkan yaa iskale dalkan Soomaaliyeed ee habeen maalin magafayaashu haystaan yaa iskale ee madaxweynihii wanaagsan la rabinin yaa iskale
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.